وقبر سوماليات أو جوكتا دلك السعودي قدامت كه هير السعودية أنا بوحي وطا قدامت وشقينيسي حافظة خيرك إسكالي حاس كودي always إسكا سارتي أو استعماليسي أو إسكا تورتي أو عاددي له قبر ناس عاقا انت اللي يري كرد بيكشب ليري وعدنا اللي يري كعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام الله وقالي أهمل والبؤدوني كجوكتان كسود هذا الجنال كيغا halka adiga la socotaan waa fihiim show soo dhaw ayaan ku leeyahay hadii ay ugu cusub tahay fadlan ha iloobin inaad channelka subscribe saartid sidoo kale muuqaalka like saar dhiirigelin ayaa ii tahay asxaabtaadii ehelkaagana la sii wadaag waad mahadsantihiin video aan aad iyo aad uga xumaaday ayaan wax yar ka hor daawaday oo runtii laga yaabo adinkaba sida anigu uga yaabo inaad ula yaabi doontaan gabar Soomaaliyeed ayaa waxay u shaqeynaysaa gabar Carab ah kadib waxa ay sameynayso runtii ma ahnin wax laga sheekeyn karo sida videoga hor u dhaciisa aad ku maqasheen gabadha Carabta ah waxa ay isticmaashay suufka dhiiga caadada loo isticmaalo ayay ku tiri gabadha Soomaaliyeed ee qadaamada u ah ee waqtigaas la joogtay in ay biyo ku rido ama suufkii biyo ay ku shubto waliba waxa uu lahay suufkaasi waqtigaas dhiigii caadada kadibna ay biyo intee ku shubto gabadha Soomaaliyeed lagu qasbaayo ama la leeyahay biyahani cab aniga ma sheegi karo sababta keentay gabadha in ay suuf dhiig leh biyo intee ku shubatay ee cabto laakiin videoga waxaad u jeedaan gabadha dhulka fadhida oo ah gabar Soomaaliyeed qofka sariirta saaran oo ah gabar Carabiyad ah oo ah gabadha loo shaqeynayo in ay gabadha leedahay sidaas yeel oo farteedan aad u jeedaan qaabka ay wax ugu tilmaamayso Soomaaliya sidaan baa noo dambeysay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضدك الصوماليات وحربا كليب كان إن لو ذاقو عن كيسون واي كليب كان كاموس وقبر الصوماليات أو جوكتا دلك السعودي قدامت كه هير السعودية أنا بوحي وطا قدامت وشقينيسي حافظة خيرك إسكالي حاس كودي always إسكا سارتي أو استعماليسي أو إسكا تورتي أو عاددي له قبر ناس عاقا انت اللي يري كرد بيكشب ليري وعدنا اللي يري كعب مركز Soomaaliya halkaas ay idin dambeysay oo jeedaan كليب maaha كليب laga aamusi karo maaha wax qof damiir leh oo Soomaaliya uu ka aamusi karo ma caadootinimada Sacuudiga uu la ciyaarayo dadka Soomaaliyeed ama dhibaatada uu ku hayo ma aha midaan ka aamusto laakiin one day waxaan aaminsanahay inaan ka aarsan doono biinillaahi kariim كليبka waxaan ka codsanayaa inaad ummadda Soomaaliyeed hadaad tihiin aad gaarsiisaan dawladda Soomaaliya si gabadhaas Soomaaliyeed ee aan ku qiyaasay 16 jir 14 jir 18 jir aan ku qiyaasay oo reerkoodii aan loogeen meel ku sheegin in gabadhaas loo gaarsiiyo dawladda Soomaaliyeed si loogu soo daro dadka Soomaaliyeed ee Sacuudiga laga soo qaadayo dhibaatadaas ku suganta gabadhaas biyaha ay cabayso waa biyo wasakhaysan oo qurun ah oo always iska saartay waxa way reerkaas guriga iskale waxa lagu qasbaya xodii baa lagu qasbaya waxay ku qasbayaan kurid meesha tan always biyo ku shub kadibna cab kilibkaas dadka Soomaaliyeed waxa gaarsiisan dawladda Soomaaliya la gaarsiiyo ilaahay baan ku dhaariyay gaarsiiya dawladda Soomaaliya gabadhaas meesha laga soo furtay iyo wixii damiir leh iyo safaaradda Soomaalida ee waxa Sacuudiga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحوي مش اللي يقالوا ديق مله والله يصدق لا قوداس درتهد Soomaaliyeed سبحان الله حاسسنا sida aad maqleysaan gabadhan reerkeeda kama warhayaan waxa aan rabaa inaan idin sheego muqallasiin ku nool Sacuudiga ayaan la sheekaystay oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen gabdhaha Soomaaliyeed ayaga oo jooga Muqdisho ama Hargeysa ama meesha ay doonaan ha joogaane in ay ka soo kaxeeyaan ilaa Sacuudi Arabiyana ay ku keenaan lacag ayaga ay leeyihiin waa sida ay ii sheegeen gabdhihii la keenay qaar kamid ah iyo muqallasiintii qayb kamid ah kadib gabadha markii laga soo kaxeeyo Soomaaliya ka soo qaad Sacuudiga Arabi ayay gabadhii geynayaan gabadhii siday u wadaan ayaga oo wax telefoon aanan siinin kaliya waxa loo soo iibinayaa wax yar oo dhar ah waxa la geynayaa shaqo reer Carab ah gabadhii ma haysato telefoon ay reerkeeda kula xiriirto gabdho badan ayaan la sheekaystay sidoo kale muqallasiin badan ayaan la sheekaystay inkastoo muqallasiinta ay igu dhaheen telefoon waan siinaa gabdhaha laakiin gabdhuhu waxay dhaheen telefoon nama siiyaan sidaas kadib waxa dhacday gabadhii markii reer Carab loo geeyo reerkeedii lama soo xiriiri karto oo telefoon ma haysato sidoo kale luqadii ma taqaano waxay ku qasban tahay inay reerkii ay la joogto ilaa ay wax badan ay ka fahmayso
reerihii carabta ahay waxa ay ka ilaalinayaan gabadhi inay banaanka u baxdo ileen waa qof lala soo hadlay oo shaqaalanimo loogu keenay sidaas ayaa waxaa laga yaabaa gabadhii 1 sano ku dhawaad 2 sano ku dhawaad intaas reerkaas in ay la joogto oo waalidkii iyo ehelkii dhala aysan war iyo wacal ka heenin sidaa maqleysaan gabadhaaneeti reerkooda war kama hayaan laakiin maanta fiidiyogan ayay kasoo muuqata ayada oo lagu qasbaayo in biyahaas fool xumada badan oo dhiiga caadada qaba in ay cabto lagu qasbaayo ayaa fiidiyo laga soo duubay reerahoodii war kama hayaan fiidiyoga sii sheergareeya carabtu waa xaasidiin inkasta oo qaar fiican ay jiraan haddana carabtu waxay u badan yihiin xaasidiin waxaa aniga la sheekaystay gabar Soomaaliyeed oo Sacuudiga u tahriibtay waxa ay tiri adiga oo hooshii dhan bogay oo wax walba qabtay ayaa waxa lagu leeyahay darbiga dhaq istaag laguma arki karo ee tiri adiga oo dabadaada dhulka taal ama adiga oo fadhiyo laguma arki karo waxa lagu leeyahay yaa binti istaag guriga waa wasaq mar labaad ku cel waa nadiifi maya kuwa ina mar labaad ku celisaa waxay tiri waa daalanahay waxaan sameeyay jiray tiri gabadhaas musqusha ama suuliga intaan galo ayaa waxay tiri go'a aan wato intaan suuliga ku goglado ayaan jiifan jiray tiri kadibna marka aan maqla dhawaqeedii islaantii oo qaylinayso oo yaa xaliima ku hayso ayaa waxa sameeyay jiray tiri intaan soo boodo oo soo naxo ayaan tubada biyaha furi jiray si ay u fahantay inaan aniga musqusha dana aan ka leeyahay kadibna go'ayga inta iska soo hugsado ayaa banaanka u soo bixi jiray musqusha waxa u gali jiray bay tiri nasiino inaan ku soo nasto waayo adiga oo wax yar fadhiyo ma ku arki karaa bay tiri islaamanka carbeed waa xaasidiin runtii gabadhaas kaliya ma ahanin waad la socotiin gabdho badan oo waxaa jiraan Sacuudi Carabi intay u tahriibeen dhibaatooyin fara badan la soo kulmeen sidoo kale gabdhaheena hadda waxaad arkaysaa habeen iyo maalin ay Sacuudi u sii tahriibayaan gabadhi waa la soo tarxiila way sii socotaa waa la soo tarxiila way sii socotaa okay maxay faa'iido gaaraysaa marka ayada waxay u maleysaa in Sacuudi Carabi inta ay tagto ay shaqaysanayso maxaa la faa'iido ay ka gaarayso laakiin inta loo geysanayo gabdhaheena Soomaaliyeed ayaa ka badan waxaad arkaysaa gabar hadda intay baxday bil ayadoo Sacuudiga joogto la soo tarxiilay oo qarash intuu ku baxay maxaa la dhahaa hore laga soo celinayo maxay faa'iido wax ay faa'iido ma laha marka walaalayaal oo fiidiyogan sii shargaray aad baa runtii uga xumaaday gabadhan Soomaaliyeed ayadana way ku qaldaneeda wayna ku fududaatay 100% in lagu qasbo oo ilaa biyaha nijaasada ee cab la yiraahdo oo ay cabta aad bay ugu qaldaneeday Soomaalidu waxay ku maamahdaa in dhan laga cabsado Allah bay ku yaalaan anigu waxa ila aheeda si kasta oo gabadhan loogu hanjabo xitaa hadii dil loogu hanjabo inaysan biyahaasi aysan cabinin laakiin wax kasta qadar rabbi waaye ayadina way fududaatay naagta carabta ahna waxa u suurta gashay dantii ay leedo ahayd gabadhan inay biyaha nijaasta cabto xataa hadii aan camera ama video laga duubeynin aad bay ugu qaldaneeday aniga ra'yi ahaanteyda waaye waxaan aad ugu xumaaday videogan markii aan daawaday runtii aad baan u karkaray waxaan u maleynayay in aniga igu dhacdo arintan subhanallah Soomaalida meel walba oo joogan way ku dhibaataysan yihiin qof walba oo wadankiisa ka soo tago waxaad arkaysaa dhibaato buu sheeganaya waa yar tahay qof istariix ku jiro waayo dalkaaga markaa ka soo tagtid oo dal kale aa imaadid horaa waxaa loo yiri dal aadan lahayn dareen ku joog waay dhibaataad kala kulmaysaa sidoo kale waa meel waalidkaaga aysan joogin dhibaato kale ayaad kala kulmi kartaa dadka u maleeyo qurbaha inay faa'iido taalo ama istariix iyo nolol macaan ay taalo fiidiyogan ha arkaano daraad fiidiyo aan soo galiyo wiil walaalkeen oo Ingiriiska ku dhibaataysan dad baa waxay dhaheen intay soo qosleen bay waxay dhaheen walaal adiga ayaaba Ingiriiska joogo oo hadduu Ingiriiska joogo wuu ku dhibaataysan yahay muxuu faa'iido ku haystaa magaca Ingiriiska yuu kula noqonin wax qiimo leh qof kasta dalkiisa wax u dhaamo waa la waayay wadankaaga hadaad dhimanaysid ku dhimo hadaad gaajoonaysid ku dhagaajo waa gabar Soomaaliyeed oo joogta dalka Sacuudiga qadaamad ka reer Sacuudiyaan ah bay waxay u tahay qadaamad oo u shaqeynaysay xaafadda reerka iska leh xaaskoodii always ay iska saartay oo isticmaalaysay oo iska tuurtay oo caadadii leh baa gabadhaas caaga inta la yiri ku rid biyo ku shub la yiri baa haddana la yiri kacab marka Soomaaliya halkaas ay idin dambeysay oo u jeedaan clipkan maaha clip laga aamusi karo maaha wax qof damiir leh oo Soomaaliya uu ka aamusi karo maaha cadowtinimada Sacuudiga uu la ciyaarayo dadka Soomaaliyeed ama dhibaatada uu ku hayo ma aha midaan ka aamusto laakiin one day waxaan aaminsanahay inaan ka aarsan doono biinillaahi kariim clipka waxaan ka codsanayaa inaad ummadda Soomaaliyeed hadaad tihiin aad gaarsiisaan dowladda Soomaaliya si gabadhaas Soomaaliyeed ee aan ku qiyaasay 16 jir 14 jir
18 jir aan ku qiyaasay oo reerkoodii aan loogeen meel ku sheegin in gabadhaas loo gaarsiiyo dowladda Soomaaliyeed si loogu soo daro dadka Soomaaliyeed ee Sacuudiga laga soo qaadayo dhibaatadaas ku suganta gabadhaas biyaha ay cabayso waa biyo wasakhaysan oo qurun ah oo always ay iska saartay waxa way reerkaas guriga iskale waxa lagu qasbayaa xodii baa lagu qasbayaa waxay ku qasbayaan kurid meesha tan always biyo ku shub kadibna cab kilibkaas dadka Soomaaliyeed waxa gaarsiisan dowladda Soomaaliya la gaarsiiyo ilaahay baan ku dhaariyay gaarsiiya dowladda Soomaaliya gabadhaas meesha laga soo furtay iyo wixii damiir leh iyo safaaradda Soomaalida ee waxa Sacuudiga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحوي مش لقى قالوا ديق مله والله يصدق لا قواد درتها الصوماليات